إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد أيها المسلمون اعلموا أن من قصص التائبين عبرًا وعظات ولها تأثير في النفوس. يا من أسرف في نفسي لا تقنطوا من رحمة الله لأن لكم رب يغفر الذنوب والمعاصي، كما في قوله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. عباد الله waxaynu maanta ka dhimbiil qaadanaynaa qisooyinka dadkii saalixiinta ahaa iyo towbadoodii, leanna arrintaa waxaynu kala dhex baxaynaa wax markaa waanaca iyo cibraa, waxaanay ku samaynaysaa nafaha arrintaasi raadayn fara badan. waxaanaan ugu baaqaynaa dhammaan insaanka ku xadgudbay naftiisa ee daalimu nafsihi noqday, isagu naftiisa dulmiyaya. qofku marka uu macaasi ku dhacayo xuquuqda addoommada ku xadgudbayo ogow naftiisubuu dulmiyayaa. kuwa naftooda dulmiyey waxaanu leenahay ee innaguna aynu ka mid nahay, ha ka quusanina naxariista ilaahay, lianna maxaydaan u quusanaynin waxaad leedihiin rabbun yakfiru dunuub walmacaasi, rabbi dembiga iyo macaasida bini aadanka ka dhaafa. waa ka aayadda qur'aanka lagu amray nebi maxamed qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim. aayaddu waxay ku soo degtay dad saxaaba oo mustadcafiin noqday ahlulmaka markii la soo hijrooday dib loo qabtay, islaamnimadoodii lagu qabsaday, la ciqaabay, dabeedna dib u ridoobay. muslimiintuna ay yidhaahdeen kuwaas raxmadda ilaahayba way ka quusteen, ilaahayna toobadooda aqbali maayo. waxay kaloo ku soo degtay kuwa kufriga iyo dilka iyo dulmiga iyo fawaaxishka iyo macaasida iyo sinada badsaday oo is yidhi war haddaynu nebi maxamed raacno xaggaynu rajo ku leenay, waxaasoo dhan baynu samaynaye, oo su'aal keenay ayay aayaddu u soo degtay qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim. waxaad tidhaahdaa addoommada ilaahay rabbigiin wuxuu idin leeyahay kuwa naftooda xadgudbay ee xumaanta ku falayow ha quusanina naxariista ilaahay. maxaa yeelay in allaha yakfiru dunuuba jamiica, ilaahay dembigoo dhan buu dhaafaa. innahu huwa algafuuru raxiim, isamkiisa sifadiisuna waa gafuuru raxiim, waa ilaah dhaafitaan badan, waa ilaah naxariis badan. walaakin yaa cibaad allah kaana salafuna saalix yakhaafuuna min miiraati sawaabiq. salafkeennii hore saalixiintii waxay ka baqan jireen sawaabiqdii hore iyo wixii lawxulmaxfuudka lagu qoray dhaxalka laga goosanayo ayay ka baqan jireen. talow maxaan ahay ilaa arrimaha waxa weeyaan amurgu waa amrun ilaahay subxaanahu wa tacaala mar hore qalinka ku qoray oo qalinka lagu duugay oo mar hore markaa la dhameeyey. waana kullun muyasirun limaa khuliqa lahu, qof kastana waxaa loo fududeeyey wixii uu ilaahay u abuuray, wax kale mari maayo. markaa taasay ka baqanayeen. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة ثم يختم له بعمل أهل النار. نبي محمد باوح الله عليه الصلاة والسلام من كلا يري من باب تغليب قبلنا والله qofka ruuxu bini aadanka ahi ee muslimka ahi waxaa dhacda inuu sameeyo, ama qofka bini aadanka ahiba camal buu samaynayaa, camal qurux badan oo camalkii ahlu jannaha ah.
camalkaasuu samaynayaa marka u dambaysa ayaa waxaa loogu khatimaya camalkii ahlu naarka oo siday waxa ka dhacayaan markaa saasuu naarta ku gelaya sababtu waa maxay riwaayad xadiidka ka mid ah waxay leedahay la yacmalu bicamali ahli ljanna fima yabdu linnaas dadku muuqaalkay qiimeeyaane daahirka guud wuxuu samaynayaa camalkii ahlu jannaha laakiin ilaahay wuxuu ogayay dawiyadiisa iyo damiirkiisa iyo qalbigiisa qofku waa munaafiq waa laba wajiila waa istusaya damac duuyaha iyo islaamnimada wuu iska yeelyeelaya waxba kama jiraan ha salaad bato ha soon bato wax xaqiiqo ma hayo ilaahay wuxuu ogayay adoonkani waxa uu ku jiro qadarkiisii horena sana loogu talagalay marka u dambaysan baa laga dhirbaaxaya waxa uu gelayaa naarta camalkii ahlu naarka lagu khatimaya oo sida lagu khatimaya wuxuu samaynayaa rido waxa laga yaabaa inuu xusnu niyad ku jiro qof saalix oo wanaagsan uu yahay laakiin ilaahay uu qadaray inuu dariiqan ka leexdo dibadna uu ridoobaya asbaabu ridda nawaaqid islam buu leeyahay waxa la yasbu muqaddasaat diintu caaya nabigu caaya muqaddasaatku caaya dunuub waaweyn buu ku dhacaya nawaaqid diinta islaamka burinaysu ku dhacaya wuxuu samaynayaa i'aanatu al-kufar 'ala al-muslimiin dadka gaalada abuu hiirinaya sidoo doonaba hadaftay muslimiinta ka leeyihiin ay doonayaan muslimiinta iyo diintooda inay ku baabiyaan ayuu kula caawinaya dagaalka muslimiinta ku hayaana wuu ugu caawinaya hadi ridda 'ala al-islam aray diinta waa lagaga baxaa hooy diinta waa lagaga baxaa صوبت على اللي يسعب كل فيسا ولا يعني عطور دودود ودعسني كاسو كلو نقوليا مركو دنبيسا اي نار تجليا وان الرجل لا يعمل بعمل اهل النار ثم يختم له بعمل اهل الجنه فيدخلها معنا متكره وابن آذني وحو سمينيا عملك أهل النارك لكن ما فيما يبدو للناس ددكو سدي أركيان وفجور فواحش بلاي معاصب كجرا كم باس إنكارتو كل علي بددكو لي واسنا يقعوا موقتا لكن أوغو قف كان نية صالحة يا إخلاص بقول يحب الله والرسول ويحب الدين ويحب أهل الدين الله تشعلي الرسول بتشعلي الدين تشعلي الكيد تشعلي إخلاص ما كجرا هوستو كجرا مركز وياه مركي هو أساسا الوارك يصوبها ثم يختم له بعمل أهل الجنة عمل كيه أهل الجنة بقول لحد وارنينكي هبل ويسبندلي وارنينكي هبل مبالغنيا نفطوا يا كبحيسا صحابة بدن بعينك عمر بن الخطاب انتوا ابو قالها انتوا مشركة انتوا دين كلا دقالم ينبي حق كسور جيرك لحسن نذكر بعد بالرومي صحابة فرا بدن عمري قال لي ما الشرك كسور دميستي ايام مركي ودن بيسي دين تسوق قالين بي جهاد كقالين هوري باي لقد لي وي شهيدين عملوا قليلا واجر كثيرا إير بيسميين وابا توحيدكم بيسوقرن حتى وحا الله يا كوا أهل الجنة نقدر رسولكم بشاريه أو يقول رسولكم عمل ير بيسميين عمل واحد بدنا والقوا أباه المريه حتى لم يصلوا فرصدوا ما هنا حتى يريدوا كذا أو صلاة بالله شرحهم ما يفرصدوا هنا ضدكم الضوامض مركع وحيكبقنا ينسرف من الصالح يعني ميراث صوابق ظهرنا إلى قريب قال عبد العزيز بن أبي زاد حضرت الرجل عند الموت يلقى لا إله إلا الله فقال في آخر ما قال هو كافر بما تقول ومات على ذلك وحيري شيخا مركا أحد سلف كمدي عبد العزيز بن أبي زاد وحانوي بيقول إن نفته كبحيصو ولا لا يا شهاده متبا والله قيمه وحوين قفك مسلم كامل كل يبني الله قال لا إله إلا الله من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة قفك هذه كلمة قدام بيساك كبحد لا إله إلا الله جنده قليا قف كاسول الأيام لو قبنا يا توحيدك لا إله إلا الله هبلو لا إله إلا الله مركي ودن بيسبا وحيري هذا الكودن بيوكو هذا الله وحاد شيء يسوي كو كفريني كريبون وحاد شيء يسوي كو قالوبي أيدي وكو كفري دبنا ويك كبحدي هذا القصيد كبحدي وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم كما رواه البخاري في صحيحه والعمل كوحا لإيغا يا لقيمين يا خاتمة لغو خاتمة أول قاربي الصدا كل نقطة وتوحيد كي أفكود اللو ديني شهادة وحلا إذا هذا اللي قوايي ورياه قاربا مركي فكذا تلبيس هالكذا سيدان دادو هيا وهو أستاذ وحاولي يبتكر مركاسي هذه قطعة جميلة إن قيمتها رخيصة انت ناسينا يا ويش منطي سودعيه لبا كبح سقار وحيوكو هلاقي شنو جعلا midba kala diraya ciidanka rigeeb uu leeyahay kala dir ciidanku kala diri jiray ciidanka kala dir buu leeyahay way kaga baxaysaa marka wixii uu dambeeyay waxa sameeyay
ayuunbuu markaa ku dhimanaya qofkana lagu soo saaraya walciyaadu billah kaana sufyaan thawri yashtaddu qalaqu min asawaabiq walkhawaatim كان يبكي ويقول أخاف أن أكون في بالكتاب شقيا ويبكي ويقول أخاف أن تسلب الإيمان عند الموت ما يخاف من ذلك منا يا من تتاك عبسي قبح وحولي أحد سلف الصالح سفيان الثوري أبو بغنش قلبي يسوى يعني قلق يدقنا الآن يورور أياديل شره صوابق دي هوري قال الله المحفوظ كما حاكوه قرن قول لي وأيامي محل الجنة هاي بس أهل النار سقو أوي يبا وحو لي وحن كبقريا إن إلهي مرهر أو قرين كان إنو النقض الشق أهل النار وأوي وحو لي وحن كبقريا مركا ودما يسال الدوية كبقايو إن لا يقسيب إيمان كبا لا يقسيبه أيان كبقرة يا أبوي سبحان الله قال مالك بن دينار خطوة روحة يكون شيخني كان عسكريا مسرفا في نفسه شاربا صاحب المكوس من عسكرية وبوليسة عشورة البلد كأوروريا اتحامتك جربة مدبدا بو انتهى دبدنا إلهي توبة وافجيه سلاسة قصديسة لقوري لكن بلا سند علماء قار باير دي الله بحبه قفك مسلم كصالح السلف كمدن هداني قصديسو نص صحيحة كسو أرورين ما هين لغو حكمه مالك بن دينار كان من أول بدايته تربى على عبادة الله والعلم عبادته علمه كل ربوبي ساسالو كل انت لقوقي شيخ عالم مركا أيها مالك بن دينار يقوم طول الليل قابضا على لحيته فيقول يا ربي قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار ففي أي دارين منزل مالك ففي أي دارين منزل مالك حبين دنبو سيدا وتاقنا وكما ومالك بن دينار حبين دن أيو برتا قركا يزهيا قركو سيدا وتشيديا markaasuu wuxuu leeyahay rabbiyow waad ogtahay kuwa jannada degaya waad ka taqaanaa kuwa naarta degaya adaa kala yaqaanaa ilaahayow rabbigayow maalig labada daarood midkeebu gurigiisu ku yaala ma jannada mise naarta garan maayo waa ooyaya marka waa imisa 12 saacadood habeenuu saa u taagay barta garku isaya kelmadaas ku celcelinaya kullu dhalika fi جامع العلوم والحكم ابن رجب كساروريه عباد الله إن من الناس من يفني عمره في طاعة الله ثم ينبه عليه بقرب أجله فيجتهد في أمر الآخرة ويتهيأ لعمل صالح للقاء ربه فيكون خاتمة له فيلقى ربه على ذلك dadkii barbaa kamida intii ilaahay abuurayba cimrigooda uu ku dhameystay in ilaahay noo deecaan shar baan sameeyay haddana waliba la yiraahdo loo sheego la yiraahdo waqtiga iyo ajashi way ka dhamaatay oo way soo dhawday ajashaadi markaas oo haddana dadaalkii hore mid ka sareeyay uu bilaaba waxa uu isu diyaariyaa uu sameeyaa amal uu doorto midka ugu fiican ee rabbi lagu kulmo ee munaasib rabbi kula kulma adoonku بدنا عمل كاسو سمينيا عمل كاسات بدنا الله ختميا الدنيا وحي وسمينيا طاعة الربي ساس الربي كل ميها من أمثال ذلك محاكم ذا مثل ذلك نبي الله محمد قصة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد وحكونا يكسر مثل ما هيصنوا نبي محمد واتي الله أمرين اقرأ باسم ربك الذي خلق برك اللي قصه الرقي يا آيات سور رجل مركا أيها المدثر قم فأنذر يا أيها المسر قم الليل إلا قليلا وكعي ذكري يدعي قراءة عباد وكعي جهاد يدعو وكعي ما رنتي سودك تصدح يا لباتك سنة الرسول كاها من سنين من الراحي سنين محمد عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عباس ما كور ربيع لما نزلت سورة إذا جاء نصر الله والفتح مركي سودكتي
قال عنيت لرسول الله بنفسه نبي محمد وحا لوغو تعسيدي نفتيسا سورة إذا جاء وتعسيد الرسول عليه الصلاة والسلام فأخذ أشد ما كان اجتهاد في أمر الآخرة ددال وحو السمايين نبي محمد وحو قدام بيبو قلي أم سلمة يكور رميسا وعلى هاي لم يقوم رسول الله ما كان صلى الله عليه وسلم يقوم ويقعد لا يذهب ولا يجي لا يقوم ولا يقعد لا يذهب ولا يجي إلا قال سبحان الله وبحمده ما نريد بيتني محمد أو فريسي أما كعي أما فريسي أما تجي أما يمي إلا وحلا سبحان الله وبحمده إلهي بحصيا إلهي بالنسهيا إلهي بالمركز كل ذكريا يا حمد جيسا ويديتني مركز سورة أمرت بذلك وترى هذه السورة وحري والله يا أمري مركز سورة لسودكتي إذا جاء رسول الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فصبح بحمد ربك واستغفر له كان توابا فأنا الله يقول يقول له كانت عادته كما قالت يعتكف في كل سنة في رمضان 10 ويحرر القرآن على جبريل مرة وفي هذا العام عام الذي مات النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عام الذي مات النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف 20 ليلة وعرض القرآن مرتين سلاسوها رمضان كسته من العشاء أيو اعتكاف جري رمضان كسته قرآن كأيو كو أخري جري جبريل باكا دقيسن جري أو كدر نمين جري سنة كيودا بيهميا لباتن هبين بو اعتكاف صلى الله عليه الصلاة والسلام لأن القرآن كينا لباتشير أيو بندقي أو أخريي أو سبعيي أو جبريل سبعيي حجة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حجة الوداع بقول يا الله تكون بس حج تذكر المسلمين تنبهوا قامي تذبحوا لها أيها الناس خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا إذا قاطع عبادات كينا الحجك تعاليم تيدا إذا قاطع ومناسك حجك إذا برتا وإذا لحدا وحانم لنا يا أبو هرين محمد إن أنا نسند الدنباء سوى نقرينين وأنا نذل كل من أنسوا حجينين فعاد إلى المدينة انتانوا لكن لكل من مسلمين دي صحابة بقول يلا باتون كويديو وحول أضون إلهي صوت ريبان هيا أمانا والي صليبه مرخاتيان إلهي قيامه هو يكويدين حيث نرد بلغت الأمانة وأديت الأمانة قد بلغت وأديت ونصحت وجاهدت في الله عقد شهادي وتسوكر سيسي فرسالة دي أمانة دي نواه قدتي وبدواد النصيحة حيثي شبهات كبات كشف ذي جهاد بادو جهاد حقا إلهي دين تيسا اللهم اشهد اللهم اشهد وكعر لي الدعير كفرته التاقو إلهي سوى إشارية dhulkana uu soo qadumiyay iyagoo dadka ugu marxatu gelinayo ilaah waa kuwa aan gaarsiiyaa doomadaan markuu noqdo dhexda maraya nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam khadab qala inni ana basharun la'an yushiku an yahtini rasul rabbi fawjib waxa laga yaabaa buu anigu adoon baan hayaa doomada kamid oo dhimanaya sida u dhintaan inuu rasuulkii rabbi soo diray yimaado oo aan aqbalo ayaa suuragal waa malakul mawt وحاو أمر بالتمسك بالقرآن كتابك قرآنك تركتكم ما إن تمسكتم لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي لما نحدينك قلتك دبضي ملو بيدولتان حتى قبستان سبنما حتى قبستان ملو ميسان ما هي يا رسول الله قرآنك يا سنتي لي ويا بوي فوصل إلى المدينة مركو مدينة تقي محوز معيني محمد وحاو عفز طلبي أو سقوتي سحابتي وأن لقيه العيد حقوق النبي محمد حتى أصحاب القبور كي يا أهل المركز واحد وصابوا غضي أو سقوتي أو سدعيو أي عاشها بين كل شيء ذاك عاي كذا وعرض تبدنا وقت يصير بعد ذلك بعد وصول إلى المدينة بعد حجة الوداع وحير دبنا دول النبي محمد عليه الصلاة والسلام من قصص طائبين من السلف الصالح قصص بدن بينو كهينا ما كغيورينو waxa kamida marka Ma'iz ibn Malik inkii Ma'iz loo oran jiray ee nafta shaydaaniga ay ka qalib noqotay ee faaxishada ku dhacay sinada ah ee niyadoon cidina ogay rasuulka u yimi ee isa sheegay ee rasuulka idahir waan dambaabay idahir bu kulay marka rasuulku ka sii jeesanaya waxa kaga imanaya uu ka sii jeesanaya waxa kaga imanaya uu ka jeesanaya la afar goor war miyaad yara salaaxday miyaad dhunkatay هم يدير تاتابتي
malaa wax kale maad samaynin maya waan sameeyey buu leeyahay markaasuu leeyahay maya maad samaynin maya rasuulullah ninkani wuu sameeyey markaasuu yidhi xataa rasuulku wuxuu ku hadlay luqada jimaaca loo yaqaano luqada carabiga ugu bawaaxsan ugu markaa waadixsan buu kula hadlay suu yidhi sidaasaad ku samaysay suu yidhi sidaasuu ku sameeyey suu yidhi ordaygeeyo haddaba dilay halkii baa lagu dilay hadda iimaankiisii umuu diidin mana cabsanin dhagax baa lagu dilayaa wuu ogyi imra alqaamidiya ka mid ah waa gabadh oo nin leh oo gogol dhaaf samaysay bini aadamku inuu khaldamo kullu ibn aadam khata wa khayru khataa'ina dawaamun laakiin bini aadamku uu toobad keenaa innaga waxa dhacaya maanta waa wax laga yaqyaqsoodo wax toobad keenayana adduunyada qof toobadiisa la qoraya way yartay maanta oo isa soo taagaya toobad ilaahay hortii amaama caalam odhanaya waa toobad keenay la odhanaya waa naadir laakiin way jiraan waxaanoo kalena way dhacayaan gogol dhaaf bay samaysay rasuulka u timi idahir bay leedahay gabadhani way siraysatay suu leeyahay maay wuu la hadli waayey say leedahay ma sidii maacis baad warwareejinaysaa dhugmati baan ku hayaa macnaa bayina cad baan ku hayaa bay leedahay uur bay sidaa uurka ninkeedu ma laha waa sina bay tidhi uurkani markay halkaa maraysa muxuu samey rasuulku gabadhaa kaxeey marka uu musheeyi keena waa la keenay ilmaha 2 sanadood ha nuujiso kabacdigeed ha la keeno gabadhii intay xamliga dhigaysay dib uma fikirin oo maxay isu dilaysaa oo ilaahay waa qafur raxiim badagax baa lagu dilaya ma ismayn haddana 2 sanadood bay ilmaheedii nuujinaysaa 2 sanadood qof intuu fikiraya wuu baxsan karaa wuu iska tagi karaa waxaas ma jirin buu odhan karaa wuu ka noqon karaa waxaasoo dhan maysay 2 sanadood markay dhammaada rasuulka hor keentay ilmiyo kimis cunay tir waa kaa kimis cunay ya rasuulullah wuu iga madax bannaan yahay wuu tallaabsanayaa idahir bay leedahay rasuulku markaasuu yidhi hordoo dahira wala deelay toobadeeda haddii loo qaybiyo 70 ahlul madiina waa saxaabadii way ka waasici lahayd bal ay toobadeeda hadduu toobad keeni lahaa saaxibul makuus cashuuryahanka kan cashuurta uriya cashuurtaad wuxuu ogsi tagtaa dhaqaalaha dawladda iyo lafdhabarta weeye ciqaabka ugu xun buu leeyahay qofka cashuurta dadka ku fardiya ka qaada wuxuu yidhi rasuulka hadday toobad keeni lahaa ka cashuurta qaada toobadeedoo kale ilaahay wuu ka dembi dhaafi lahaa wuu dembi dhaafi lahaa waxaa ka mid ah rajul min bani israa'iil alladii qatala al-mi'a ninkii boqolka dilay 199 markuu uu marayo ayuu caabidi u soo dhiyay sheeg wax toobada soo dhiyay war naga tag wad waarantii 99 baa dishay kiina uu ku boqolay caalib uu yimi soo maxaa toobada ka hor jooga balad xuno suuq qariyo xun baa joogta ardadaadu waa ardo suuq ardo saalixa oo dad ehel saalixiin oo ilaahay caabida halka joogay dibna ha ugu soo noqonin wuu tagay markaa tii markuu dhexda marayo malakul mawdka uu yimi naftii buu ka qaaday markii sakaraadkii buu dhinacaas u yaray soo hinqaday ayuu sakaarka xagga u yara tuuray intaa ka in leeg buu u dhawaaday markaa tii kale laba markaa waxay isku qabsadeen naarta iyo jannada malaa'igtoodii ninoo malagaa iska soo dhigay dabadna malag baa nin iska soo dhigay anaag idin kar qaaday maxay isku haysaan wuxuu leeyahay lam ya'mal abad amal saalix ma samay bal nufsid buu dadka laaya bal waxay leeyahay uu toobad keenay oo wuxuu ku soo socday qariyada saalixiinta inuu la cibaadeysto wuxuu waan idin qiyaasaya qoladu u dhawaado ma qaadanaysa halka ku dhawaaday marka ilaahay uu aqbalay toobadiisa waanu dhigtay soo ma waxa weeyaan dadka qasaskooda waxaynu ku yeelanay ibro allah maxaynu dulmi iyo ijraam iyo xadgudub dadka xuquuqda ku xadgudubna aynu badsanay ilaahay ka yaabno oo ilaahay u soo toobad keeno rabbi subhanahu wa ta'ala الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد عباد الله تنبهوا توبوا إلى الله بدار إلى التوبة وتهيئوا للرحيل قبل فوات الأوان وهو إلهي كبقنا ورا الله توبت كانوا ورنت على فرصة إن دافنا الله توبت كانوا والعاقبة وحي نقول أنتم مستقبل كانوا ما قررين هو وحي إلهي يكتسب إنه قررنا ما قررنا بكى أحد الصحابة عند موتي فسئل عن ذلك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قبض خلقه قبضتين فقال هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار صحابي بقى أوي صحابة الرسول كملة ودمني سالم محد أوي صحابي الرسول قاطعه إلهي قد مدافع سلوحان بقى النبي محمد أولي صلى الله عليه وسلم إلهي لبقى قربو حنطوبة قاضي مخلوقي صدن إن قبضه وحلا تابك أنت لبو قاضي لكن إلهي كف يقعن بولي حقيقة سيدو وحو قبطان إساقا يقان إنكم مقرنين واسفه لي لبقى قربو قبطي مخلوقي إسا مركز سوري قيبتا عن قاضي واتشندا قيبتي كمان الله بعد وحلوان نارتا ولا أدري في أي القبضتين كنت وحن له يا أبو الكرن ما يمالين كان نفها بني آدم كلنا إلهي قاضي دبرك النبي آدم لقى صاري انت أنا تشندا ولي انت سنوان نارتا قيبتا راعي يا أي شيء ما حيقه
horeeya ma garanayo buu وصحابي الرسول جاهد في الله حق جهاد ربي يجيب عبد عباده حقه انتو جهاد طبعا adiga waad iska qoslaysaa ummadda islaamkuna ka nabad heli mayso meel walba waad ka tacadducaynaysaa raad baad daba dhigaysaa kun cayn iyo kun dhigood baad yeelanaysaa oon xaqa maqlin baadilka iyo sharka mooyaan iyo beenta iyo shacaadka mooyaan haddana waad kibirsantay oo waad qooqsantay oo waad qoslaysaa war ilaahay aan ka baqano alla u toobad keeno inna min annaas man kana amalu fi awwal umrihi adiyaa والضلال والتمرد على الله ثم ينتبه ويتهيأ للرحيل تذكر قاربا وحي كسعدان هذه يقراله عمل كود سيدو ودني عمري كود وقتي هore waa hadow waa iska lunsan baadi nibu dhexda baalanaya ilaahay waa ku madax adag yahay oo waa mid madax adag oo aniida hadhow markii baraarugaya xumba ilaahay sabab uga dhigaya markuu baraarugo yashtay في أمر الآخرة يتهيأ للرحيل وودي مريسا وحقات كسعطا يعزم على التوبة والإنابة إلى الله عز وجل ويتم شروط التوبة يندم ما فات يخلع عن الذنب يعزم على عدم العودة إليه ويخلص كل ذلك لوجه الله تبارك وتعالى وبرار بزومه هذا التوبة بوقو عن صدين إلهي النقضة توبة طبعا shuruudihii buu tirinayaa toobada oo dhan oo ay ka bilaabayso waxaan ka tagay ee aad samaysay inaad ka murugoto dambigaad faraha kula jirto inaad faraha ka qaado toobad beenaalayaasha soo ma taqaani markay dulmi sameeyaanba astaghfirullah bay dhacdaan xajkana way ku cararaan astaghfirullah xajkana way ku cararaan waxay fasahaadiyaan ay kastaba way fasahaadinayaan toobada ilaahay ma aqbalo toobad soo ma dabadna kale isagu wuxuu leeyahay dambigii uu ka fuqay markuu murugooday dibna inaan ugu noqon buu go'aansaday waxa soo dhamin maxay ka tahay ilaahay wajigiisa istusnimo kama aha wa in darama ahadan min ibadillahi ta'allala minhu aw a'dahu haqqah hadduu xuquuqdu lagu leeyahay tahay xuquuqda aadami oo adoomada wax ka dhacay kanuu ayuu wax ku dhuftay kanuu garaacay kanuu figeeyay kanuu xoolihiisa dhacay kanuu caay kanuu reerkiisa qaribay kanuu carruurtiisa ka fasahaadiyay kanuu xurriyadiisa ku xad gudbay wuxuu doonaba ha sameeyo adoonkiina war ilaahay dartiigu saamax alla dartiigu saamax waxaan oo xuquuqaad ugu leedahay ama ba xuquuqdii lagu lahaa uu bixiyo farta ka saaro wadaadayga qabso wadaalika qabla al-qarqara la budda an yakuna qabla al-qarqara لكن شروطها سمحي أنا صحيحة أنت أنا نفط هالك سوقاري إن الله يقبل توبة العبد ما لم يقرقر أنت أنا نفط هالك سوقي منين مركي دقاتورتك قوسته اللي هل من راق أي يودنا يعني مكودنا يعني مكو وقرمة لما أقبله نفط مركي هالك سوقاري توبة ده لما أقبله والرحد مركي كسوق بحده هالك كدعده لما أقبله مركي عرض يعقابك إلى هاي سود دقو فرعون بولا جديد فرعون قرب الرمي مركو بدك وقرقوا بس همها الآن وقد عصيت من قبل وقرما ما أنتم فرعون قرنا يا إيد وحو فلايه رقبا يلي توبة وقتك وحما ما ترحصوا يا عباد الله لكن توبة شروط هذه ودمية طبقا لقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا الضوء قال يا إسلام أنبياء يقيكود waxa ilaahay uu amr ku waajibiyay inuu ilaahay toobad keenaan waliba tooba nasuuxa waa mid oo saafi oo saadiq oo runa waa toobada qofku dambiga markuu ka toobad keenaanu dib ugu noqonin abad waa nasuuxa laakiin hadduu toobad keeno waa laga aqbalaya hadhow hadduu ku noqdana de toobada nasuux noqon maysa laakiin haddana mar kale hadduu toobad keeno waa laga aqbalaya dambiyadoo dhan in laga toobad keenaa waajiba laakiin hadduu barka toobad keeno badda uu wali sameeyo barkaas laga aqbalaya barka kale waa la sugaya وإنت أنا قفك كل عين كفر يا الشركي لكن أنت كفر يا الشركة كوجرتا إيه مركزي وإن الدين الإسلام كشهادة وكسوة قلان أما وريدوا بقفك وإن الدين الإسلام كشهادة وكسوة قلان وإلا هذيك الرحمة لك أقبل معيو وإحنا قدافع أنا مجرور أبد نهر النار بالمقنية عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم وحرب حقيقة عصا من الله وترجي حقيقة قوية وحي لهي حقيقة كوية هاي inuu waxa la waxa macaasiyo siyaada sameeyeenba ceebteeda iyo xumaanteeda bay idin ka asturo ciqaabkeeda idin ka dhaafo wa yadkhulu
لكم جنات تجري من تحتها الأنهار بدل كل نقطة أبها المرن إن الجنة كشان جنة صوم حياة بساطين برواقي حور العين وحور بيالين ما شاء الله إلهي الله سبحانه وتعالى هاي نوافجيه عباد الله maanta inaynu ogaano waxyaabo badan oo qasaska taa'ibiinta ah min qasas taa'ibiin kamid ma minha qissatu tawbati Abdullah ibn Maslama Abu Abdurrahman al-Harisi wa shaykh salaf ahad atba' tabi'in wa imam culimada xadiiska kamid ah imka markii uu nolosaasuha laakiin kaana awalan musrif fi nafsi صاحب المجون والشرب نبيتك وعبي جري بالك لو سخرامو عراق غير مدينه بصرنا وتجي markii dambe asxaabi reer dhalinyaro abay waxaan maaratay dhalinyarada isu urursata ayay isu urursan jireen gurigiisu markaa in maal iyo waxba ma lahaystay ku soo dhaweyn jiray sharaabka isaga qaba akliga iyo cunidana isaga qaba maalintii dambu diyaariyay cashadii iyo khamrigi wuxuu ahaa wixii la cabay nabiidkii ayuu diyaariyay deedna dabaduu soo baxay isagoo macawis cas xidhan soo arkay nin sheekho la daba yaacayo markaasuu manu saalaale waa shucba ibn hajjaj manu huwa shucba wuxuu ka dhigay ninka saas loo daba yaacay saalaale waa muhaddis cilmiga xadiiska rasuulku hay u cararay wuxuu yiri xadiisni hajjaj ibn maxaa qora shucba ibn hajjaj ii sheeg xadiis rasuul alayhi salatu wa sallam ka wari sulasta min ahli alhadith san kugu sheega mada ahli alhadith ba sidoo uu fulan baba tahaybe baashi toorideer biska soo jan suliimaan kugu jeexjeexan kugu dhaawaco iyo inaad ii xadiis labada kala sheeg de sheekh waa ku caday Soomaa muxuu sameeyaa markaas قال حدثني منصور عن ربعي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاسمع ما شئت حديث سقى خسيب وري وسقى دفاعي marka xadiiska sanadkii buu akhriyay waa mansuur buu ka wariyay ribci ibn hirash buu ka wariyay abdullah ibn mas'ud buu ka wariyay rasuulka ay tagtay rasuulka yaani kalaamkii ambiyadii hore laga soo gaaray waxa kamid ah war hadii xishoodku ka dhinto xishoodku ka baxo de wax walba ku mubax waxbaad ka xabaysa de sameeyay waxa doonto mar hadaan xishoonayn hadii maanta ay taagantay idaa lam tastahi fasma' ma shiita culimadii saa loo jiijiidaya culimadii marka la jiijiiday maxaa lagu sameeyaa waliga aaranka geela oo aad ku durduriyay maaragtay doobir bay oran jirtay Soomaalidu tabtii baad culimada ka yeelaysan maanta iyo dalabatoon iyo ardaydooda waad ku durdurin barateena ku dabaal barateene culimada ku dabaal baratay oo duqsiga caanaha ku dabaal bartay ma laga yaabaa maalinta dambe inaa fuud kulul gashaan arnaftiina عليكم بأنفسكم أن يقولوا حالدين كنا سيحين يا نفيه نبينا أذروا وحلو وردان الحشر واحد نصيب ماذا فعل لما سمع هذا الحديث محسن إن عبد الله بن مسلم القعنبي مركو حديث كام قلي وعرري وقفوا وحدوا لها السمية دمير باكوشر النار بنا آذنه أو مسلم كل جيبوا تجي وحلا وحي دلوين كي خمري وحي دم بالبري يا نبيت كيف بالبري عشان halka diyaarsan buu hooyadii ku yiraahdo saaxiibada cashada cunadhay saaxiibkiin wixii la cabay uu burburiyay waxaana uu ka toobad keenay uu tagay cashada cunay iska rawaxa ku dhig halka uu ka dhaqaaqay Basra weey Shu'ayb ibn Hajjaj Basra uu jooga Basra Iraq ku taalo waarsan koonfurta Iraq ku taalo waa caasimada saddexaad ee Iraq Madiina yimi yu soo doonanaya Imam Malik صاحب المذهب العظيم لازم إمام مالك 30 سنة صدق سنوات بو أرضي وها علماء كلامه وكسو قاطع علمي عالم بو نقضي كوريان أئمة حديث كقوة وقص حدا بدل الحديث كودو بخاري ومسلم يا أبو داود يا كوريان أيون نقضي نكي عن كاها مركي وطوبت كاني الحديث هو مركز شعب أولي لأنك بعد أبو بصرة كل نقضي وحد دون الشعب إنه حديث كلك ساقرته شعب أولي انتي بالله كل مي أما بو ساق لقولي جيسه أدبتي أيو يردي لو دك سنة يو ودي ذنو وري وحكي الحديث كي هاي حديث كاسو كل يو كوري مركز شعبه ما ننتو قصته كوري قصة دي السبلطي توبتي سو نقضي علماء السلف كو حكم إذا قاضي عياد معنا فضيل بن عياد بمجينا فضيل بن عياد بن مسعود التميمي كان شاطرا مسرف بها في نفسي برعد بها طريقي قوية ماشي لنا أبي وردي يصرخسي
ayuu dadka jidgoynta waa la isla yaqaanay war hooy dariiqi baa maraysaanay diyaar garooba maalin dharaarun ka gudba waxaa taagan markaa Fudayl ibn Ciyaad bahal dacoodiga iyo burcadnimada yaqaano waqtigii hore ahaa jaariyad buu jeclaaday Soomaa habeenkii dambu ku soo guureeyo gidaarkeedii buu soo fanadaya dabeedna aayad quraana laga dul akhriyay cid akhriyayna ma arkayo alam yaani lil ladina aamanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah wama nasala min al haqq bala qad ana ya rabbi bala qad ana ya rabbi bala qad ana ya rabbi wala dul akhriyay alam yaani lil ladina aamanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah warmiyani wali u gaarin kuwa muuminiinta inay qulubtoodu ku khushuucdo dhikriga Ilaahay u khushuucdo oo dulowdo iyo wixii Ilaahay soo dejiyay xaq quraanka ah oo xaqee laga aqrinaya ma jirto cid oo arkaya uu dhawaaqay markaa mayane wala rabbo way noo gaadhay waa khushuucnay Allahumma tubtu ilayk wa shartu tawbati mujawaratu bayt al-haram wuxuu ma taqaana rabbigayo waan ku toobad keenay ku soo noqday soo maan ka sii ordaynin waxaana shardi ah toobadaydu inaan xaramka Ilaahay la jaaro bartaasu laasmay culimadii cilmiga laasmay oo caalim buu noqday sida uu noqday markaas qacnabiga caalim ibn abi hatim baa bihi weydiiyay soo ku dhahay al-qacnabi yuhibbu ilayka fi al-muwatta am ismaaciil ibn abi uways laba nin baa wariyo ka xambaaray kitaabka yaani ugu horeeya muwatta ka wariyay imaam malik mid waa qacnabi midna waxa weeyaan ismaaciil ibn abi uways suuri ninkana imaamka la weydiinaya abi hatim ninkiisi sheekha baa weydiinay suuri labada imaam jeceshay markaas uu qacnabi ahabba ilayya budi fi al-muwatta ninka wariya qacnabi ayaa ugu horeeyay budi ما رأيت أخشع منه وحجة ثقة بوري ثقة حجة ما رأيت أخشع منه ولقنا إنك خشوع بدل مالك عابدا كذلك فضيل بن عياض عالما عابد بن نقطة عالم عابد النقطة بركة عبادة قال كل نقطة عالموها محدث ذو نقطة لكن حديثك يورين تيسا وحوق الله يحدي العبادة دي هذه وحوين علماء داسي وعلماء دي سلف كانوا خطة إلى التوبة دولة أنا دوري أن تضل لو ما أنت مسلمين ومصرفين ونفتوا واحد من التوبة كذا ومن قصص طائبين في هذا العصر كثير حدث عنه ولا حرج كوا ما أنت شوقة توبتك يعني عصريا ترى مرها إنسان ذي المعجع عابي كرا صومالية غير كود إنت عندونه لكن هذا المثال اللي شبه وحكم إذا نكيل معروف كها لاعب كان اللاعب لاعب الكرة سابقا وداعيا إلى الله لاحقا مركا روحها كبديها بوها كبد عيارة وكنا شيء رياض وأنين مدو أفريكانا رياض سعودي كنا شيء من أرض قويها وقد أحرز شهرة كبيرة في مجال لعبة الكرة ويراها وكارك إذا إنترنت كإما كل قال لي إلى الأمام إلى الأمام عبد الله بن الرب عبد الله بن عبد الرب عبد الله بن عبد الرب إلى الأمام وإسلامته يوضيق رحرين يكبدي صور رحرين يلاد كذا هذا يا بيسو مركريا إلهي سبحانه وتعالى وهبي يعيد وطوبة وافجزها دبي نو صون نقضي والنويني مكا ودقة والشيخة والداعية مركز ويان نفس طريق الممثل المغربي الشهير سعيد السياتي كان اسمه سعيد ولكن لم يجد السعادة إلى الآن طلب السعادة قال إن كان ممثل وحتى إذا عطي شهر الله هينو والله بري على نيوني باور باهي وناس باتها مغني باتها هيستا تقانا إن تلفزيون كمسرحي باتها تلفزيون كمغرب أيو كسو بيحي جري يا إذاعة كيس عدكيس وي كوا بريسان جري سيدا القرآن كيو دغيسان جري غير مغرب عالم كودنا waa إذاعة loogu jeclaabay hay wax qariiba ka soo baxay marka wuxuu anigu darajad baan helay maalna waan helay laakiin waan warwarayaa ma garanayo ninoo saxafi ay wareysay buu soo yiri anta kasbik saciid baa tahay waad liibaantay sida magacaaga kale soo ma hidi saada wallahi lama jidi saada اسمي سعيد تقول ولكن اسمي سعي معنى سعي وقفك مركا عمل فلي اجتهادي سوما ماذا يسعى ليجد الدال سعادتي waxa ka dhiman buri daal saci baa la yiraahdaa daalna way ka dhimantay buri markan daal helo daal xarafka daal ayaan ajidu saada qarabu qabtay qariibkiisu joogo qariibkiisi baa toobad karo gal yeeshay oo ay ku leeyay saaxiibadii wuu waashay masaajid ku galay wuu weysaystay qalbu la baxay wuu waashay hal la qabto irhaab uu noqday wuu waashay ayuu arkay walaalkiina way ku soo dareen waa ninkan Saciid Sayaati isagii baa shabakada lagu soo rag baa Ilaahay u habeeyay dabeedna uu toobad keenay asbaxa daaciya shahiiran nin daaciyo caam wuxuu intaasoo gorba nafteeda dilay balaca kamiya kabiira min aladwiya intaasoo kiniin baan markii la qaybirsan kooma kale say meel waliba fariisatay sadaqatar kale igu carray oo suntii dhigi laga saxbiyay buu wuxuu isu dilayaa
وحيسود له يا سعادة دي بولي وحكستو درجة وين كثير وكثير محافظ أبو خالد بقى كمذا رجع ترتن كبابورك عالم كوقاضي أيها كمذا مركز وطوبت كره وحكم إذا مركز هالة بن فؤاد كبدي وقروح لبضنيد وقهست معاند عرفتها الرجع كلا دور جدا كل ما بتقولن جورزة جرتي ويطوبت كنتي أولادنا ويراتي حجابك بيقاضتي سيف عنده وطوبت كنتي حد حاجة عرفت إسكت ده الصومالي ده كم إمسان الصومالي ترين كرينا ويفرق بديه نين كإنتو عشاقها أما مؤذنها ديمون نقضية هو ولا كبيري وحكم بدن isagoo fanaanaha ama gabadhu fanaanadahay inay diinta islaamka u toobad keento oo ay fanki ka toobad keento laakiin kuwani ma yiraahdaan uu toobad keen ka hebel iyo heblaayo fanki bay iska daayeen ay ku oranayaan waxay u diidayaan in la yiraahdo fanku waa dambi laga toobad keeno anigu misir ma idin ka sheegaa oo kaliya in aanu qariib ahayn ilaa aaskiisina aan joogay waa Abdullaahi Diiriye Sooraan inta waaweyn baa garanaysa inta yaryar ma garanayso هويجي فنكه يمرتدي يمدادالة مقدشة رجي كبر قبك أبوها هرجيسنا لقوا يقانو وحنكرنا يعني قوي يرغب لنا يرد هرجيسا يكون هذا غضه الذي سا أيها نقول شوكي لكن عهدي قلنا نشط الضمبه دونتي أي صومالي صار ريمر كي موجودوه كل جيلين هيك لا قضي أي عارض كوحو عارض يرب وطوبة كسوقاتي وحنا نصر نقول قار لبدي يكون هي وحي هيد ما قرنا يو سوري من كان وذا بندونا يا إسرافين تأذن السنة كمدي هاي ونويمي وترى هالك مقالة هرجيس نحن نكوي هلا نكوي عسوني حديث كخطبة نكوي شريك أيام كو آخريه ما أنت محاضرة دي كلمة ديالو كلاي مساجد كانوا تشوفنوا مؤذن كان نقول كمان أبحوا يرعي مريسو أما حاجة أما سفر يروح حاجة وبحوا بس مساجد كمان بحوا عرور وين بولها مركز دمر سوتشده عرور شيء وجورسدي أيامه يودم بيسوون وهذا الشيء كيسجرني وكقصري كذا وحي ما أنت سمينا يا حدقها جيس كي يكني مركاو كو فنك يو كو سياسة يو وذات كيرا أبرارين ويارا كهين وذات كيرا أبرارين ويارا كهين وكقصري كذا ويوني ويارا نمد دمية عيال كي هالجيساها هل كان كنت بيجون حسبوا إلى هذا أنا تشيل كقصة بحياة عصب مركز سور الشيخ هذا لو نفط ويل المنا يسراعه وحبا يقول سياس خير إني ما نضيع حين يوقعنتك وقبل بيقول لي يقول وحي سنه النبي محمد كبرته وحان هاينا يا الله يمريني هذه أمانة مقولي حتى كذا بيس أنا وحير شوقي بوصور دعي وشيف صدي نور الشيء بالله دقي ديك بامركب الحكا كفر ما يصير بكل إنسان أنا بلنتي بنو فيه لكن يا إسمي ولا تدا غيبها إسلامك وأبتر صدام مقعية كلا شيء تنسيد يوديه صوفية دون بين نركي أو صوفية دون بعلمنا عقيدة هاي أنت كلنا بايني وحي أبكي هولا أخاود النوى يسوي مادين هولا دي بانو هالك إسكا فريسة هو سودا وانينا ما أنت ويل كيني يجمن كيني ما هي وكايجي هالك كتشوف سيدا الله ومحن نقول يا أبي أي تري قبل هولا ده كمل وحاسب إلى هاي سيه هيك حبالها الناس صاحب لوط باكلا بطي سيتي وحاسب إلى هاي سيه ما هو بروح كفر يا رنت هذا قبل رشاك تبيه وعنو سينا ننسى حيب كيان انتا صغروا قاينو لحجي ودعر لينا بان كلمة سينا بل النوام كقادنا إنا ننكاسي يهيسي ينرشي هوري إذا عاد كيح حماية قالة دي وحن فرفري جري أنا يسو أكمر قلبتي دهر بانو أصلي أي إذا عاد بي بسيدس كسوري قطي غزل إذا عروا بالكورن تاريخنا رليت كيسي يهيسي هدا إن كورن بيتي نيكي عبد الله ديري صوران هذا نجت شوق بري نجت شوق علماء ذا أبي زوني كاسبي طوبت كيني بوهاي وحاكم وجرين الله يمر شيء كيني شب بيتني شب إمي كنا قارب بدن أنت الله عاصي ميسي الله قدر القراعة سوما خبلا بدن أو خبلا يويل بدن بنشيء وانو يريا ولي وانو يسوقينا والله أنا ذيك قوسرين هالباه يجيباتين تلك يجيباتين دليل بدن أو ولا حدا ودوين كسمة يبان سوقيا قارب بدن وبالود ولا ديرات يبان سوقيا كوا بدن الظلم جاء الضوء ده كوف فجادي أيان لا يتوبت كنا كوا عن ذيك الشيء كنا يا شعروا أن السعادة في طاعة الله والشقاوة في الإعراض عن الله وحيوا قادر والمحل يقول لي بنا قلبكم حكوا راح يصطاد يشعرون ألم ضيق الصدر وحلوان ورورينون حتى إلى أن جاءت الهداية ودخلت في قلوبهم
سيور ورين بين هاي هداية وكاني أو بشاشة دي إيمانك قلبي قوضة صوك شيء سيقرت شو معانك نرش وحي كجرا عبادة إلهي لما تورنا يقول ترى وحي كجرت إلهي ولا قتشستو إله سبحانه وتعالى بهدي ومن يريد الله أن يهدي يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضل يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يسعد في السماء قفك إلهي هنونك الله معه مركا النور كقلبك الله قمه قلبك واسعيا وإفتيميا كان كلاميا توبت كان بالله قلبك عيني بقول نقول يا سيدو السماء كوريا اللي بوك اللي فوق ليلة هاي السماء كوري أو فناني لو قلت أجري معي طيب هذا سعادة كشرت من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فليحيي حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون قف الرجل يضمر مكر الله ولا سمي إلهي تعديسا هديو لي ما عمل صالحة وإيمان وكوع السي وإيمانكم قندقوا ياهي قف كاسي إلهي سبحانه وتعالى نرى وناكسر وجنه قبر الله نوريو سعادة الدنيا وحنا لقوا بالمري عمل كيسي وناكسر ويحكوا فينا لقوا بالمري واجب حسن يسون بمركز ولقوا بالمري يا عباد الله أما سهد خفوا كجل سميا فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشر يوم القيامة أعمى قف كذكري كجست إلهي الدين تيسك قتك الله كسي جسته نرى لك الدنيا ده قبرك قيامها نرى لك بولي ما أنت قيامنا يسوون إن دلاب على كريه قبرك مركو كسب عنده كلا قاضية قيامها مركل لي ما ضم حشرك دم بالك دقيقة قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا إلهي بالله دودية إلهي صوني إن دقبي الدنيا دي مركل قبرك صو صارت صوني إن دقبي نحن عندها يجا قاضي وكذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ورارك وعينك مركي آياتك لقوا آخري سومات كتشي سنو كما تجي تركتها واسكيتك sidaad uga tagtay aayadka naarta lagaaga tagaya inta naarta lagu dhaafina adoo indhalaana soo xaadirin qiyaamaha toobada ku xaadir intay goor tahay oo dulmiga cibaadka iska daa wariyaa Soomaalidu waxay u jirtay geela markii weesay darka rigada rabbi alkum riixin bay sida hayso soo ridi annaga idin kule maanta waa dhinteen faraacinadii Namruud Hamaan قارون دجاجلة أبو جهله أبو لهبه وادنتين أنبياء الله دنتين صحابة بادنتين خلفاء الراشدين أردني عشرة المبشرين سلف في صالحة يدك دعاء الصالحين وادنتين ولا لا يوي روحين لكن شيء بار روحين وندمانين وما قرر إنسان شيء باقي ما قرر إنسان ودينتي حقي وين وجهك صالح يطالح بوالله دنتين لكن دينته وجهك وحبي الميسان دينته دين عدو أنت ما كجيب هذا وحضن تام بالسماية والله إذا وحبيني ما هلاقيسان وحن نفتينا حين إلهي وطوبت كنا أو وحفراك وخيسان الظلم يقوه الرأي كعمها كقاضة دي هديك لنا سورة السوقة سورة قيامنا وامرك جريدة نفط كوتي مع ذلك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا اللهم أصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين وأهلك من فيه هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين اللهم انصر المستضعفين في كل مكان اللهم فرج كربتهم اللهم فك أسر المسلمين اللهم فك أسر المسجونين في هذا البلاد وغيره اللهم فك أسراهم وردهم إلى أهاليهم سالمين اللهم من أراد بديننا ووطننا ومساجدنا ومدارسنا وتعليمنا وتربيتنا بالسوء فأشغله في نفسي واجعل كيده في نهري وأرح المؤمنين من كيدهم يا رب العالمين اللهم عليك المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان حسبنا الله ونعم الوكيل. آخر دعوانا الحمد لله.